بسم الله magacaygu waa Cabdiraxmaan Baryow waxaan kaalinteeda ku aadan ka qaadanayaa baaqa oo ah joojinta colaadda dalka ka aloosan waxaan nahay arday Soomaaliyeed waxa ugu baaqaynaa dagaalkii colaadda in la daayo waxaan ahay Soomaaliyeed waxaan dadka u qaadnaa inay nabad qaataan waxaan nahay Soomaali waxaan dadka u baaqaynaa inay nabad qaataan aniga waxaan ahay aabba Soomaaliyeed dadka Soomaaliya waxaan ugu baaqaa meel kasta ay joogaan inay nabad qaataan waxaan nahay arday Soomaaliyeed waxaan dadkeena ugu baaqaynaa inay nabad qaataan waxaan aabba Soomaaliyeed ahay dalkeeda Soomaaliyeed waxaan leeyahay inaan nabad qaatin nabad ayaa macaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh anigoo ku hadlaya magaca aabba Soomaaliyeed iyo nin imaam masjid Ramadaan insha Allah taala waxaan u baaqayaa awlaadda ka awrsan dhamaan inay iska daayo oo sabarka la qaato dulqaadka la qaato sidaan ugu dimaana subhanahu wa ta'ala wallahu subhanahu wa ta'ala waxaan nahay dhalinyaro Soomaaliyeed waxaan halkaan u baaqaynaa inay dadkeena nabad qaataan waxaan ka mid ahay dadka ku shaqeysta xirfadda darawalnimada waxaan dadkayga Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan cirif kasta oo ku nool yihiin ugu baaqayaa nabad baa naas la dhugalay waxa soo xanuujisay marka aan soo istaagay wax kale ma ahan waxa ahay aabba Soomaaliyeed oo dareemi karo nabadgelyo darada waxa ka dhalanaya ama keeni karo marka dadkii Soomaaliyeed meel kasta oo dagaal ku socdo waxa ugu baaqaa inay dagaalka joojiyaan man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ardi fakannama qatala an-nas jamii'a ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قف كستو Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa nabadda inuu kaalintiisa ka qaato isagoo iska soo duubaya kilib yar oo uu ku leeyahay waxaan dadka Soomaaliyeed ugu baaqayaa anigoo ah qof Soomaaliyeed inay nabadda qaataan adigoo joogtid goobtaada xafiiska goobtaada shaqada iyo gurigaaga maanta waa 31 December 2024 oo maalinkii ugu dambeysay ee sanadkan hadda noo dhamaanayo sanadka soo socda oo biri inoo dhala doono 1 January 2024 qof kastoo Soomaaliyeed waxaan u rajeynayaa nabad barwaaqo iyo bashbash Soomaaliya noolaato